عوينه بلوغي دكتور عطاني دقتك تعبر انسان سيح الرياضي لفتكيك وعم بحور والله بالله ما بطور ربي اسمعي قدامي سيدا عرفتي وبحطيها heestaasi macaan oo uu qaadaya alfanaan samatar waxa ay qayb ka ahayd xaflad lagu soo dhaweynay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo habeennimadii xalay lagu qabtay magaalada Geneva ee waddanka Switzerland xafladani waxa soo qaban qaabiyay guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Switzerland iyo qaar ka mid ah ururada Soomaaliyeed ee ka dhisan waddanka Switzerland كورنت أيسان إيمان قابت حفلة كده عيسى رئيس الوزراء دالك الصومالية وحشر قاري شيء مدحض الجالية الصومالية ده ودن كي سويسرلاند يقار كم ده أوروردا كم ده إيسان دلها الصومالي ده يسدو كلا أوروردا عن دولة هين وحين دمان تدهست كهريقين إن أي مدوبان إسلام مركان أي إسكا كاشدان سيدي الله سمين لهاي جالية جود أو مدايسة صومالي ده دالك سويسرلاند يجا وسيدو كلنا أماني وحقبت كسفارة الصومالي ده دالك سويسرلاند وحينا وحبا كما جيران كتل مامي ورك الشيء إيا إن أيسان سفارة جنيفا وحقبت كيدو بورنين intaasi kadibna waxa goobta soo gaaray ra'iisul wasaaraha dalka Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyada oo dadweynaha goobta ku sugnaa ra'iisul wasaaraha dalka Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa gacan qaaday qaar kamid ah bulshada soo dhaweynaysay waxana safarkiisa ku wehelinayay isla markaana salaamay dadweynaha qaar ka tirsan xildhibaanada dalka iyo sidoo kale wasiirro hore oo ay kamid ahayd wasiiradii hore ee arrimaha qoyska Aamina Maxamed Mursal barnaamijkeena marka ugu horeyso annagoo caawa isugu nimid xafladda soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed waxa kaloo xafladana la jooga safiirkeena Soomaaliya u fadhiya dawladda Switzerland magaalada Geneva mudane Yusuf Maxamed إسماعيل بريبري وحا وفديغا للصعودة حلدبان عبد الله أحمد عوكي حلدبان إبراهيم سليمان الكعسة وسيرتي إني هراء أوركا هوين كصوماليات آمنة محمد حلدبان داهر حسن waxaa la socda wafdigeena sida aad la socotaan Axmed Ali Aybakar كان مارتي عادي فرحت ويني أنا كسر دوينا رئيس وزراء هيني وبرشة تاريخ للنووي من السلام عليكم دمان دويناها أو مشان إسكوبي ماذي ولا يسود يقان أنا كم يعيق واحد مناجي وكرر جنب الله أو لفظ كل شيء تردسي أيان مدح واهي مدن الوزراء وحاشرف عاوية إن صلاة بهات من كاغوضو حبناها جالية بازل يورو كدريل نبدين تهرمرين الصومالية أنا جو كواد لي أفك فنانين الصوماليين أفك وبري يا فنانين تسويس كجودهان وحن رئيس الوزراء كاغا ماد علينا آسكي شرفت لها قروح ضبطنا قرن عادو سميسي هل يجي قرن الصوماليين بقركي عودكا محمد سليمان توبير مدن رئيس الوزراء سيده هدايا أبوه مقشي رونهانته ومركو هو الرئيس يدو سيده لو ودا دغيحي Soomaaliya meel isugu timaad gaar ahaan Soomaalida ku nool dalka Switzerland waa guuli farxad weyn oo inuu soo yeeshay جارية الشرف ترى وحكنا من دلكيني وحكنا من دتكيني أولاً السلام عن مدحلة حلبانا الحكومة الصومالية عن ذكسو قاسينا هنا بدونا وحن هالكان أنمد هول قرن ورمتي مهدى الولاية هاي السفير كينا اللي لجوغا وسوسو البدو ورمتي أن رجينا إنه هلقا كوين وأن كجفو إنه مدينا نرشد أو حكا بدلنا
waxa uuna ka sheekeeyay waxqabadkii dowladiisa intii ay jirtay isaga oo u yimid wadankani shir caalami ah isla markaana la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee wadankani Switzerland waxaana kulanka wasiirka arrimaha dibadda wadanka Switzerland ku weelinayay qaar ka tirsan jaaliyadaha Soomaalida wadankani Switzerland taasi oo aan hore loo arag Ra'iisul Wasaaraha dalka Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa ku amaanay jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Switzerland sida hufnaanta badan oo ay uga soo qayb galeen xafladda loo sameeyay soo dhaweyntiisa ururadii soo qaban qaabiyay munaasabada iyo guud ahaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee wadanka Switzerland ayaa iyagu si weyn u soo dhaweeyay dadweynaha Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay madasha Cabdirashiid Guure Royal TV Geneva